Kevin De Bruyne waxa iska diiday qoyskii yaraantiisii uu la noolaa. Saaxiibtiisa ayaa khiyaantay oo u wareegtay saaxiibkiisa garoonka. bilowgii waayihiisa tababarihiisa ayaa ka saaray kooxda, warbaahintuna waxay ku tilmaantay ciyaaryahan fashilmay. laakiin inkastoo uu la kulmay diidmo xooggan iyo dhaawac bilowgiisii ah, Kevin De Bruyne waa uu diiday inuu quusto, waxaana uu noqday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican kubadda cagta abid. haddaba sidee ayuu Kevin De Bruyne uga soo baxay xaaladdii ciyaaryahan la diiday uuna ku noqday xiddig caalami ah? Tani waa sheekada dhammayska tiran ee Kevin De Bruyne. 28 Juun 1991 waa markii uu dhashay Kevin De Bruyne, waxaana uu ku koray magaalo yar oo ku taalla Belgiumka, halkaasi oo uu ku haystay nolol iska caadi ah. laakiin isagoo ilmo yar ah, hal shay oo keliya ayaa maskaxdiisa ku jiray, waana kubadda cagta. isagoo oo koraya, Kevin De Bruyne waxa uu had iyo jeer kubadda ku ciyaari jiray beerta gurigooda, waxaana uu marar badan jebiyey dharigii xaafaddooda. sababtaas awgeedna waalidkiisa ayaa diiday inuu mar dambe beerta dhexdeeda ku isticmaalo lugtiisa midig ee awoodda badan. taasi waxa ay noqotay mid noloshiisa wax weyn ka beddeshay, sababtoo ah hadda waxa uu noqday ciyaaryahan awood ku leh labadiisa lugood si isku mida, si ka duwan dhammaan ciyaaryahanada kale. markii uu gaaray da'da 6 sanana waxa uu ku biiray akaademiyadda koox kubadda cagta oo deegaankiisa ah, halkaasi oo si degdega loogu aqoonsaday inuu noqon doono ciyaaryahan caalami ah. Kevin De Bruyne waxa uu ahaa ilmo xishood badan, laakiin marka ay timaaddo dhinaca kubadda kama uusan cabsan jirin inuu hadlo. ii oggolow inaan hadlo ayuu marar badan ku qaydhin jiray carruurta, sababtoo ah heerkiisu waxa uu ahaa mid ka sarreeya kuwa kale. De Bruyne waxa uu ogaa inuu u baahan yahay inuu la ciyaaro ciyaartooy fiican, sidaa daraaddeedna markii uu gaaray da'da 8 sano waxa uu saxiixay inuu ku biiro akaademiyadda kooxda la yidhaahdo Gent, taasoo ahayd kooxda ugu fiicnayd ee deegaankiisa. Kevin De Bruyne 6 sano ayuu ku qaatay kooxdaasi Gent, wuxuuna halkaasi mar kale ku dareemay dhibaato, sababtoo ah aad ayuu uga niyad jabay tayada ciyaartoyda kale. wuxuuna ahaa mid aamusan marka uu garoonka ka baxsan yahay, ha yeeshee gudaha garoonka waxa uu ahaa xiddig qaylo badan oo canaan badan, mar kastana waxa uu muujin jiray inuusan ku qanacsanayn kooxdaasi. markii kooxda haysata akaademiyadda ugu fiican Belgiumka albaabkiisa ay soo garaacdayna, De Bruyne ma uusan awoodin inuu diido. isagoo da'da 14 sano jirana waxa uu guuray dhanka kale ee waddanka, isagoo ku biiray kooxda Genk akaademiyaddeeda, halkaasoo ay uga bilaaban doonto nolol adag oo uusan waalidkiis la joogin. Kevin De Bruyne waxa uu tilmaamaa 2 sano ee ugu horreeyay ee ku qaatay Genk inay ahaayeen sannadihii uu keli ahaanta ugu badan dareemay noloshiisa. maadaama uu weli ahaa ilmo yar, Genk Academy waxay u diyaarisay qoys korsada oo uu la joogo inta lagu jiro xilli ciyaareedkaasi. xasuusnow, Kevin De Bruyne waxa uu ahaa ilmo xishood badan, sidaa daraaddeedna mar walba waa aamusnaan jiray, keligii ayuuna ahaan jiray. keliyana waxa uu diiradda saari jiray kubadda cagta. markii uu sanad ku dhammaaday, Kevin De Bruyne waa uu faraxsanaa, waxaana uu macsalaameeyey waalidkii uu la joogay, kuwaasi uu ku yidhi waan is arki doonaa dhowaan. Kevin De Bruyne waxa uu ku soo laabtay gurigii waalidkiisa, laakiin markii uu yimid, waalidkiisu waxa ay ku soo dhoweeyeen weji murugale, waxaana uu weydiiyey maxaa qaldan. waalidkiisu waxay u sheegeen in qoyskii uu la joogay aysan rabin inuu ku soo laabto. De Bruyne aad ayuu ula yaabay, wuxuuna weydiiyey tan maxaa keenay. laakiin waxa uu maqlay 6 eray oo noloshiisa muddo badan ku soo laalaaban doonta. sababtu waa qofka aad tahay. qoyska uu la joogay ma aysan rabin Kevin De Bruyne, sababtoo ah aad buu u aamus badnaa, waxayna u arkayeen inuu yahay wiil yaab badan, adag oo aan lala macaamili karin. Kevin De Bruyne waxa uu dareemay khiyaamo iyo niyad jab, sidaas darteedna xilli ciyaareedkii xigay ma jirin qoys uu la joogo. xaaladduna waa ay ku xumaatay, sababtoo ah qoyskaasi waa ay diideen, waxaana ay sheegeen mar dambe na lama noolaanayo. Kevin De Bruyne waxa uu ku qasbanaaday inuu ku noolaado hoyga iskuulka, halkaasi oo sidoo kale ay ku noolaayeen carruurta ku wada dhibta badan. De Bruyne waxa uu mar walba xasuusan jiray 6dii eray ee ahayd sababtu waa qofka adigu aad tahay. laakiin sida aad marar badan ku arki doonto noloshiisa, De Bruyne waxa uu beddelaa xanaaqiisa iyo dhaawiciisa isaga oo ka dhigta awood iyo dhiirigelin. wuxuu waalidkiisa u ballan qaaday inuu 2 bilood gudahood ku gali doono kooxda koobaad ee Genk. bishii ugu horreysay ee uu soo laabtay, De Bruyne waxaa lagu soo bilaabay kaydka ciyaar da'yartu ay ciyaarayeen, laakiin wakhtigii nasashada markii la gaaray ayaa la soo geliyey garoonka, waxaana maskaxdiisa ka guuxayay erayadii qoyskii uu la noolaan jiray. waxaana uu muujiyey xanaaqii iyo xanuunkii uu dareemayey, isaga oo yidhi 1 gool kuma doonayaan adiga, 2 gool aad baad u aamusan tahay, 3 gool adiga ayaa dhib badan,
4 gool kuma doonayaan adiga, 5 gool sababtoo ah qofka aad tahay. Waxaan dhaliyey 5 gool hal haaf oo ciyaarta ah. Taasi waxay ahayd isbeddelkii noloshiisa. Ciyaartaasi kadib De Bruyne waxaa looga yeeray kooxda koowaad wuxuuna fuliyey ballantii waalidkiisa isaga oo aysan xitaa waqti badan ka soo wareegin. Laakiin kadib arrin la yaab la ayaa dhacday. Qoyskii uu la noolaan jiray ee diiday De Bruyne ayaa dib u soo dalbaday iyaga oo leh waxay ahayd inaan fahan qaldan ka qaadanay. Waxayna garteen inuu De Bruyne yahay xiddig caalamiya oo soo baxaya iyaga oo ka shalaayay go'aankoodii hore. Laakiin tani waxay noqotay dabeecad ku soo noqnoqota nolosha Kevin De Bruyne. Marka la diido waxa uu dhaawaca u beddelaa awood wuxuuna noqdaa mid guulaysta. Kuwa diidayna waa ay ka shalaayaan. Arrintaasna De Bruyne si toos ah ayuu uga jawaabay. Waxa uu yidhi maya idinkaa igu tuuray qashinka hadda oo aan mid fiican noqday waxaad rabtaan inaad isoo ceshataan. Kevin ugu dambayntii waxa uu ku jiray waddadiisii riyada waxaana uu noqday ciyaaryahan kubadda cagta ah oo xirfadla ah. Bishii May 2009 De Bruyne waxa uu markii ugu horeysay u ciyaaray kooxda koowaad ee Genk halkaasi oo uu ku qaatay dhowr sano oo ka mid ah bilowga xirfadiisa. Xilciyaareed kasta waxa uu ciyaarayay inuu noqdo midkiisa ugu fiican marka ka dambaysa. Sanadkii 2011 Kevin De Bruyne waxa uu ka caawiyay kooxda Genk inay ku guulaysato horyaalka Belgiumka markoodii saddexaad taariikhda isagoo ka garab ciyaaraya saaxiibkiisa ninka la yiraahdo Thibaut Courtois. xilligaasi Kevin De Bruyne wuxuu sidoo kale bilaabay inuu la socdo gabar la yiraahdo Carolina, laakiin labadan qofi waxay ugu dambeyntii khiyaamayn doonaan Kevin De Bruyne waliba si xanuun leh. Arrintaasina waan u soo laaban doonaa goor dhowe. Waqtigan nolosha Kevin De Bruyne aad bay si fiican ugu socotay, wuxuuna sidoo kale markii ugu horeysay u ciyaaray xulka qaranka Belgiumka kulan saaxiibtinimo ay la yeesheen Finland. Tanina waxay ahayd bilowgii jiilka dahabiga ee Belgiumka oo ay ka buuxaan xidiga waaweyn sida De Bruyne, Hazard iyo Vincent Kompany. laakiin waxa ugu muhiimsan waqtigaasi waxay ahayd in Kevin De Bruyne ugu dambeyntii uu faraxsanaa isla markaana loo arkayay mid ka mid ah dhalinyarada ugu hibada badan guud ahaan qaaradda Yurub. Kooxo badan oo waaweyn oo Yurub ayaa doonayay saxiixiisa balse ugu dambeyntii waxa uu doortay inuu 7 milyan ugu biiro kooxda Chelsea halkaasi oo uu ku saxiixay heshiis 5 sano ah. Kevin De Bruyne waxa loo arkayay inuu noqon doono Frankie Lampard ka cusub. Taageerayaasha Chelsea waxa ay rajeynayeen inuu buuxin doono booska halyeygooda. Qorshaha Chelsea ee De Bruyne waxa uu ahaa xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay in lagu diro amaah si uu u helo waqti ciyaareed oo intaasi ka badan. sida darteed xilciyaareedkii 2012-13 Kevin De Bruyne waxa lagu diray amaah uu ku aaday kooxda Werder Bremen ee horyaalka Bundesliga. xilciyaareedkaasi De Bruyne waxa uu dhaliyay 10 gool isagoo caawiyay 9 kale, taasoo ahayd rikoorkiisii ugu fiicnaa ilaa waqtigaasi, waxaana uu ku guulaystay abaalmarinta da'yarka sanadka ee horyaalka Bundesliga maadaama uu ka mid ahaa ciyaartoyda ugu muuqashada badnaa horyaalka markaasi. Markii xilciyaareedkaasi uu dhamaaday De Bruyne waxa uu ku soo laabtay Chelsea, waxaana jiray qorshe kale oo inay kooxo kale amaah ku raadinayaan. kooxo badan oo Jarmal ayaana xiiseynayay, laakiin Chelsea waxay heshay tababaro cusub kaasoo ahaa Jose Mourinho. waxaana uu yeeray Kevin De Bruyne isagoo oo ku yiri waad joogaysaa, waxaan rabaa inaad qayb ka noqoto kooxda. Kevin De Bruyne waa uu sii joogay Chelsea balse ma uusan ogeyn in noloshiisa oo dhan ay u bilaabanayso waqti burbur ah labada dhinacba garoonka dhexdiisa iyo noloshiisa gaarka ahba. Kevin De Bruyne iyo saaxiibtiisa Carolina waxay wada joogeen muddo 3 sano ah markii Carolina ay go'aansatay inay safar lama filaan ah ku tagto magaalada Madrid. intii ay Madrid joogtayna Thibaut Courtois oo ahaa saaxiibka Kevin De Bruyne ee xulka qaranka Belgiumka ayaa la kulmay Carolina, waxaana dhex maray xiriir jacayl. arrintu si ay uga sii dartana Carolina ayaa waraysi siisay warbaahinta iyada oo tiri habeenkii Thibaut aan la qaatay waxaan ka helay waxaanan ka helin 3 sano oo aan xiriir la lahaa Kevin De Bruyne. marka ay arrintaani dhacday Kevin De Bruyne waxa uu dareemay khiyaano aad u weyn. labadii qof ee ugu kalsoonaa nolosha, saaxiibkiisa iyo gacalisadiisa, labaduba waa ay khiyaameen. tababaraha xulka qaranka Belgiumka ayaa la hadlay De Bruyne waxaana uu sheegay inay jirto fursad in Courtois laga mamnuuci karo xulka qaranka, laakiin Kevin De Bruyne waxa uu muujiyay naxariis iyo xasilooni isagoo oo doortay in xiriirka xirfad ahaaneed ee Courtois uu la leeyahay uu sii socdo. inkastoo dhaawac weyn uu ka qaaday dhacdadaasi, si kastaba ha ahaatee waqtigiisii aargudashadu waa u imaan doonaa oo sheekadan ayay ka mid tahay. dhacdadan waxa ay gelisay Kevin De Bruyne baal madow maskax ahaan iyo naf ahaanba, taasina waxa ay saameyn ku yeelatay qaabcireedkiisii garoonka. subax ka mid ah bishii December tababarihii Chelsea Jose Mourinho ayaa u yeeray Kevin De Bruyne xafiiskiisa, waxaana uu ku yiri waliba si toos ah hal caawin 0 gool iyo 10 kubadood oo aad soo ceshatay. kadibna Mourinho waxa uu bilaabay inuu akhriyo tirikoobyada ciyaartoyda kale ee qadka dhexe ee Chelsea. halkaas ayayna Kevin De Bruyne uga cadaatay in mustaqbalkiisa Chelsea ay u dhamaatay uusan kana mid ahayn qorshaha Mourinho. toddobaadii gudahoodna De Bruyne waxa uu si rasmi ah looga iibiyay kooxda Wolfsburg ee horyaalka Bundesliga, waxaana uu muuqday mid noloshiisa ciyaareed ay hoos u dhacday. Kevin De Bruyne hore waxa uu soo maray dhaawacyo iyo niyad jab, laakiin marna sidaan oo kale uma dhaawacmin.
gabadhii uu jeclaa waxay ka aaday saaxiibkiisa tababarihiisu waa uu iibiyey isaga oo ku tilmaamay mid aan fiicnayn laakiin sida aan had iyo jeer ku naqaana Kevin De Bruyne waxa uu u beddelaa xanuunka awood iyo dhiirigelin noloshiisa waxaana ay ka dhigtay dhaawacaasi shidaal inuu ku abuuro dib u soo kabashada waayihiisa kubadda cagta markii lagu jiray bartamihii xilciyaareedkii 2013-14 isagoo da'da 22 sano jira Kevin De Bruyne waxa uu ka degay Wolfsburg isagoo oo cara ay ka buuxdo diyaarna waa inuu dadka oo dhan tuso inay khaldan yihiin waxa uu si degdeg ah ula qabsaday qaab ciyaareedka kooxda wuxuuna bilaabay inuu kalsoonidiisa dib u dhiso Kevin De Bruyne waxa uu sheegay in muddadaasi uu joogo Wolfsburg ay ahayd halka ay wax walba isku beddeleen ma aha kaliya garoonka dhexdiisa ee balse sidoo kale noloshiisa gaarka ah sababtoo waxaa halkaasi uu ku bartay xaaskiisa mustaqbalka wuxuu arkay gabar lay garaynaysa wax uu soo dhigay Twitterka wuxuuna rabay inuu fariin u diro laakiin waa uu ka xishooday sida daraaddeedna saaxiibkiisa ayaa telefoonka ka qaaday oo fariin u diray taasina waxay ahayd riixid yar oo uu u baahnaa si uga baxa xishoodkiisa waana taas midda uu ku bartay jacaylka noloshiisa dhabta markii noloshiisu ay dib u hagaagtayna Kevin De Bruyne waxa uu galay xilciyaareedkii xigay isagoo ah hiboole cajiib ah wuxuu ku dhamaystay xilciyaareedkaasi isagoo leh 16 gool iyo 28 gool caawin wuxuuna jebiyey rikoorka caawinta ee Bundesliga Wolfsburg ayaa ku dhamaysatay kaalinta labaad ee Bundesliga waxayna ku guuleysteen Jarmal Cup-ka xilciyaareedka cajiibka ah ee uu ciyaaray awgeed De Bruyne waxaa loo doortay ciyaaryahanka sanadka ee Bundesliga waxqabadkaasi yaab kale ayaana keenay in Manchester City ay albaabkiisa soo garaacdo De Bruyne waxa uu doortay inuu mar kale aado horyaalka Premier League sida darteedna waxa uu siixay heshiis ugu biirayo kooxda City isagoo 24 sano jir ah qiimihiisuna waxa uu ahaa 55 milyan warbaahinta Ingiriiska ayaase ku tilmaantay lacag lagu lumiyay ciyaaryahan ay Chelsea diiday laakiin De Bruyne mar kale waxa uu diyaar u ahaa inuu ku washakiyay qaladkooda tuso xilciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Man City si fiican ayuu ku bilowday wuxuuna dhaliyay goolal waaweyn ciyaaro waaweyn laakiin bartamihii xilli ciyaareedka ciyaar ay la lahaayeen Everton waxa uu ka dhaawacmay jilibka dhaawacaasna waxa uu garoomada ka saaray dhowr bilood isla waqtigaasna xaaskiisu waxay ahayd xaamilo 8 bilood ah cunugoodii ugu horeeyay waxaana Kevin De Bruyne uu dareemay inuu yahay mid aan waxba qaban karin maadaama uu ku boodayay biraha socodka si kasta haatee waqtiga adag waa ay ka gudbeen waxaana De Bruyne uu yiri waqtigaasi waxaan bartay inay jiraan wax ka muhiimsan kubadda cagta waana qoyskayga dabcan ugu dambeyn De Bruyne waxa uu ku soo laabtay garoomada wuxuuna ka soo kabtay dhaawacii waliba si xoog leh isagoo oo gool dhaliyay ciyaartiisii ugu horeeyay ee soo laabashada xilciyaareedkii ugu horeeyay ee Man City waxa uu ahaa mid adag balse guulo leh kaasoo uu ku soo laabtay Premier League una cadeeyay inuu yahay mid heer sare ah markii xilciyaareedku dhamaadayna waxaa la shaaciyay in Pep Guardiola uu noqonayo tababaraha cusub ee Man City taasoo calaamad u ahayd bilowga boqortooyo cusub oo ka dhalanaysa Premier League markii ugu horeysay ee Pep Guardiola iyo De Bruyne ay wada hadleen Guardiola waxa uu ku yiri Kevin idhageyso si fudud ayaad u noqon kartaa ciyaaryahanka shanaad ee ugu fiican dunida shanta ugu sarreysa si fudud taasi waxay ahayd dareen cusub oo Kevin De Bruyne ku soo kordhay sababtoo ah waa markii ugu horeysay xirfadiisa ee uusan u baahnayn in qof uu khaladkiisa tuso ama uusan u ahayn diyaar inuu dagaalamo oo uu isticmaalo waxyaabo xanaaq ah oo tamartiisa kicinaya waxa uu helay tababaro dhab ahaantii rumaysan kartidiisa wuxuuna kaliya u baahan yahay inuu xaqiijiyo inuu saxan yahay tababarahaasi xilciyaareedkii 2016-17 waxa uu ahaa mid saldhig ah Pep Guardiola iyo Manchester City balse Kevin De Bruyne waxa uu ku jiray xaalad aad u fiican wuxuuna dhaliyay 7 gool isagoo oo bixiyay 21 gool caawin xilciyaareedkaasi mana jirin wax koob weyn ah oo la qaaday laakiin waxa uu ku dhamaystay kaalinta 14aad ee Ballon d'Or-ka taas micnaheedu waa in Kevin De Bruyne uu yahay ciyaaryahanka 14aad ee ugu fiican dunida taasina waa ay fiicnayd laakiin ma ahayn shantii ugu sarreysay xilciyaareedkii 2017-18 Manchester City gabi ahaanba waxay la wareegtay horyaalka Premier League iyaga oo ku qaaday 100 dhibcood oo rikoor ah Kevin De Bruyne waxa uu ahaa lafdhabarka kooxda isaga oo ku biiriyay kooxda 12 gool iyo 21 gool caawin sanadkaas sidoo kale Belgiumka ayuu gaarsiiyay kaalinta saddexaad ee koobka adduunka taasoo ahayd natiijada ugu fiicnayd ee abid ay gaaraan tani waxay ahayd xilligii ugu sarreeyay ee jiilka dahabiga ee Belgiumka in badan ayaana aaminsan inay ku guuleysan kareen koob weyn laakiin cadayn buuxda ayaa muujinaysa inay wax qaldan jireen sababtoo ah xulkan waxa ka wada tirsanaa laba ciyaaryahan oo isku khiyaameeyay gabar ka dhaxaysay tanina waxay ahayd guul weyn oo soo hoyatay Kevin De Bruyne iyo Belgiumka sanadkaasna waxa uu De Bruyne ku dhamaystay kaalinta 9aad ee Ballon d'Or-ka taasoo ka dhigan inuu 4 talaabo u jiro halkii uu Guardiola saadaalinayay 2018-19 wuxuu ahaa xilli ciyaareed adag Kevin De Bruyne mar kale ayuu la kulmay dhaawac culus oo sababay inuu waqtiyo ka maqnaado ciyaaraha si kasta ahaatee
waxa uu ku guulaystay 3 koob oo gudaha Ingiriiska Premier League, FA Cup iyo Carabao Cup. Markii la gaaray 2020 Kevin De Bruyne waxa uu waayay Premier League balse waxa uu magac ku reebay taariikhda kubadda cagta isaga oo sameeyay 20 gool caawin oo Premier League xil ciyaareed gudihiisa taasoo ahayd micna ahaan inuu la simay rikoorkii Thierry Henry isagoo cadeeyay inuu yahay mid ka mid ah kubadsameeyaasha ugu wanaagsan dunida. sidoo kale waxaa loo doortay ciyaaryahanka Premier League ee xil ciyaareedka taasoo macnaheedu yahay inuu ahaa ciyaaryahanka ugu fiican England, laakiin nasiib darro sanadkaasi Ballon d'Or-ka waa la joojiyay oo lama bixin sababtoo ah COVID-19 sidaa darteedna lama ogaan karin kaalinta uu galay. laakiin hawlwelin maxaa yeelay 2021 Kevin De Bruyne waxa uu ku dhamaystay kaalinta 8 ee Ballon d'Or-ka waa ciyaaryahanka 8 ugu fiican dunida. taasi waa wax weyn balse weli ma ahayn shanta ugu sareysa. hadda aanu gudubno 2022 horyaalka Premier League ayay mar kala qaadeen iyada oo Kevin De Bruyne uu ku darsaday horyaalkaasi 19 gool iyo 15 gool caawin waxaana mar kale loo doortay ciyaaryahanka Premier League. waxaa ka sii muhiimsanaa inuu ku dhamaystay kaalinta 3 ee Ballon d'Or-ka. taasi waxay ka dhigan tahay inuu si rasmi u noqday ciyaaryahanka 3 ee dunida ugu fiican waxaana uu cadeeyay hadalkii Guardiola inuu ahaa mid weyn oo cajiib ah. laakiin hal mar oo kaliya kuma filna Kevin De Bruyne sababtoo ah 2023 wuxuu mar kale ku dhamaystay kaalinta 3 ee Ballon d'Or-ka. laakiin xil ciyaareedkan waxa ugu weyn oo aan dhammaan xasuusan karno waxay ahayd inuu dhamaystiray 3 taariikhiga ahayd ee Manchester City, Premier League, Champions League iyo FA Cup-ka waxaana uu magaciisa ku qoray taariikhda kubadda cagta. waxaa kale muhiim ahayd sidoo kale inuu xilli ciyaareedkan ka hor finalka Champions League ay Man City wajahday Real Madrid taasoo micnaheedu yahay in Kevin De Bruyne uu wajahayo Thibaut Courtois. kulankii hore De Bruyne waa uu argutay isagoo dhaliyay gool mucjiso ah. kulankii labaadna door weyn ayuu ku lahaa guushii 4-0 ee Man City, laakiin gaar ahaan waxaa loo xasuustaa goolkii argudashada ahaa ee Thibaut Courtois. ugu dambeynna Kevin De Bruyne waxa uu ku guulaystay hadda koobab badan iyo abaalmarino shakhsiya oo aan la xisaabi karin. waxa uu cadeeyay inay qaldanaayeen qoyskii diiday ee yaraantiisii uu la noolaa. waxa uu ka badbaaday khiyaanadii saaxiibkiisa iyo saaxiibtiisa. wuxuu cadeeyay cid walba oo shaki galisay inay khaldan tahay. waxa uu sidoo kale xaqiijiyay riyadii dadka isaga aaminsanaa. mana jirto wax shaki ah oo ah in Kevin De Bruyne uu yahay mid ka mid ah ciyaartooydii ugu waaweynaa taariikhda kubadda cagta.